كي عبد المجيد حسين واللاميسي هينو يهينك قابيي اسمامulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu bartilmaameed u noqday kooxdii hubaysnayd ee Islaamiga ahayd ee Al-Ittixaad oo mar isku dayay inay khaarajiyaan Itoobiyaanku waxa ninkani ay u yaqaaneen libaaxii caqliga badnaa intii u dhaxaysay sanadii 1995 ilaa 1998 waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbigii Ethiopian Somali Democratic League sanadkii 1997 Mele Zenawi waxa uu magacaabay wasiirka isgaarsiinta xukuumadda federaal دكتور عبد المجيد حسين oo ku dhashay magaalada Diridhabe ee dalka Itoobiya 13 bishii June ee sanadkii 1944 waxa uu ahaa dhaqaaliyahan la taliya sare u noqday Mele Zenawi oo Itoobiya madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ka soo noqday waxa uu aaminsanaa dhaqaalaha furfuran ee suuqa xorta ah fikirkaasi waxa uu keenay maalgashi iyo taageero dhaqaale oo ballaadhan oo Itoobiya ay ka hesho reer galbeedka oo ka soo horjeeday nidaamkii dargiga ee shuuciga ahaa ee uu hogaaminayay Colonel Mengistu Haile Mariam oo la riday sanadkii 1991 Abdi Majid Hussein oo la aaminsan yahay inuu yahay ninka qaabeeyay ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu bartilmaameed u noqday kooxdii hubaysnayd ee Islaamiga ahayd ee Al-Ittixaad oo mar isku dayay inay khaarajiyaan Itoobiyaanku waxa ninkani ay u yaqaaneen libaaxii caqliga badnaa intii u dhaxaysay sanadii 1995 ilaa 1998 waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbigii Ethiopian Somali Democratic League sanadkii 1997 Mele Zenawi waxa uu magacaabay wasiirka isgaarsiinta xukuumadda federaal xilkaas oo uu hayay ilaa sanadkii 2001 sanadkaas oo loo magacaabay danjirihii Itoobiya u fadhiyay qaramada midoobay 29 bishii Maarch ee sanadkii 2004 ayaa uu geeriyooday isagoo ahaa danjirihii Itoobiya jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxaana lagu aasay magaaladii uu ku dhashay ee Diridhaba Abdi Majid waxa loogu magac daray kuuliyadda tababarka macallimiinta ee magaalada Jigjiga oo halka tababarada lagu siiyo macallimiinta dugsiyada ku yaala deegaanka Soomaalida xogta taariikhdiisa oo kooban waxaanu ka soo xiganay baraha internetka ee macluumaadyada lagu kaydiyo